daawadayaal markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo kulamada xiisaha leh ee galabta laga ciyaaray qaaradda Yurub. Aan ku horeyna kooxda Man City ayaa guul soo laabasho ka gaadhay kooxda Brentford kulan ka tirsanaa Premier League. Kooxda Brentford ayaa ka naxsatay Man City waxaana ay daqiiqadii koowaadba ka dhaliyeen goolka koowaad ee ciyaarta. Waxaa goolka Brentford u dhaliyay xidiga Yona Wissa kaas oo ciyaarta ka dhigay 1-0. Man City ayaa bilowday inay raadiso goolka barbaraha iyaga oo si joogto ah u sameynayay fursadaha. daqiiqadii 19aad ayay Man City goolka dhalisay waxaana u dhaliyay xidiga Erling Haaland kaas oo ciyaarta ka dhigay 1-1. Man City ayaa sii waday dadaalada si ay u dhaliyaan goolal kale. daqiiqadii 32aad ayuu Haaland dhameystiray soo laabashada waxaana uu dhaliyay goolka labaad ee kooxdiisa isaga oo ciyaarta ka dhigay 2-1 oo ka hogaaminayso kooxda Man City. waxaa sidaa ku soo dhamaatay ciyaarta oo ay Man City guul soo laabasho ka gaadhay. tababaraha kooxda Liverpool Arne Slot ayaa ka hadlay guuldaradii ay kooxdiisu kala kulantay Nottingham Forest kulan ka tirsanaa Premier League. Liverpool ayaa guuldaro lama filaan kala kulantay kooxda Nottingham Forest kulan ay ku sugnaayeen Anfield. kubadda marar badan ayaanu ku luminay xaalado fudud. taasi waa sheekadii ciyaarta ayuu Slot yiri. waa inaan kaliya eegno nafteena, waa inaan fiicnaana. marar aad u badan waxaan luminay kubadda anagoo oo joogna agagaarka goolkeena. kooxda Liverpool ayaa la kulantay guuldaradii ugu horeysay ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkani. arrintan waxay walaac ku haysaa guud ahaan taageerayaasha iyo waliba inta xiisaysa kooxda Liverpool maadaama ciyaartii ugu horeysayba looga badiyay garoonkooda aan looga badin tan iyo intuu hogaaminayay Jurgen Klopp xilli ciyaareedkii hore.